السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع خالد أحمد. maanta walaalayaal waxaan rabaa inaan duubo fiidiyoo ka hadlaya qaabka trading view loogu xirto saacad qaabka ugu xiranaysa ama alertiga markuu suuqu meesha rabtid ku yimaado inuu ku xusuusiyo. marka insha Allah qaabkaas baa fiidiyoo ku sharaxaynaa alarmidaas qaabka ugu xiran lahayd. marka trading view aad timaatid meeshan hadda muusku ku hayo kore oo ku qoran tahay alerti dad ku dhufatid waad kaga xiran kartaa halkan. waxaad kaloo kaga xiran kartaa meeshan geeska ah waatan halkan kugu sawiran haddaad ku dhufatid watan kuu soo baxdo meeshan balaaska haddaad ku dhufatidna way kuu soo baxaysaa qaabkana waad kaga xiran kartaa alartiga meeshaasna waad kaga xiran kartaa. waxaa kaloo samayn kartaa qaab kaloo fudud oo ah inaad timaadid meesha aad rabtid aad ku xiranaysid markaas waxaa keenaysaa muuskaad keenaysaa meeshaas markaad timaadid geeskeeda waxaa arkaysaa calaamad yar oo tan ah halkaas marka calaamadda ku dhufto nambarka geeska oo qoran oo 161.757 buu hadhow kuu soo saaraya tana marka check ku siinaysaa hal mar add baa leedahay add alert markaad ku dhufatid waa kan halkaan kuu saaray soo jeedaan calaamadan uu kuu saaray baa waxa ku siinaysaa kilik baa laba jeer ku siinaysaa okay kana kuu soo baxay marka meeshaan marka waa meesha aad kaga xiranaysid iyo qaabka iyo editka aad samaynaysid waa meeshaan waxay ku siinaysaa inaad kaga xiratid amarska amarada aad rabtid meeshaan aad ka dooranaysaa hadda meeshaan waxaa ii dooran crossing haddii aad furtid waxaa ku jira jaanisyo badan waxaad ka dhigi kartaa crossing waxaad ka dhigi kartaa crossing up crossing down greater than less than international kuwaan dhan baad dooran kartaa exit channel inside channel outside moving waxaan dhan baad dooran kartaa marka waxaan rabaa inaad aan inii sharaxo hadda waxaan dooranayna tan koowaad crossingka markaas micnaheedu waxa weeye mar walba uu suuqu linekan soo jaro wuxuu kuu sheegayaa saacadaas ku qaylinaysa markaas alertiga kuu sheegaya halkaana wuxuu kuu gelinayaa nambarkii halkan ku qornaa meeshaan ku xiray nambarkii geeskada kaga qornaa buu halkan kuu gelinayaa meeshaan ku qoran tahay optionsna waxa weeye inaad ka dhigatid one and only ones iyo inaad dooratid every time tan marka micnaheedu waxa weeye wuxuu kuu sheegaya keliya hal mar keliya goortu soo jaro unbuu kuu sheegaya laakiin markaad dooratid every time walba uu qiimuhu meeshaan soo jaro ama kor ha u jaro ama hoos ha u soo jaro waxaa kuu qaylinaysaa alertiga meeshaan kale maca time baa ku xiran kartaa expire date baa u samayn kartaa meeshaan taasna waa intaas meeshaan kale marka waa tan meesha ugu muhiimsan oo la rabo inaad ka dooratid haddaad midaan aad saaratid tigta ay ku qoran tahay notify on app haddaad taleefanka waxa weeye abkan waxa weeye abka trading view-ga hadduu taleefanka kuugu jiro oo kale waad ku xiran kartaa markuu soo dhaco waa yacni wuxuu kugu siinayaa ogeysiis buu wuxuu kugu soo tuurayaa abka trading view-ga oo taleefanka kuugu jira middan waxa weeye ku qoran tahay show bob abkan waxa weeye haddaad tigta saaratid wuxuu kuu soo saarayaa tan oo kale bahasha hadda muddo aniga ii saaran tan oo kale kuu soo saarayaa oo ku ogeysiinaysa timekii in la gaaray okay haddaan saaro tigta markaas wuxuu kuu sheegaya calaamad sawir bahashaan oo kale kuu soo saaraya tana hadda saa u jijiidaya camal wuu kuu ogeysiinayaa markii timekii la gaaro waxaa kaloo samayn kartaa inaad ku xiratid email sendi emailkan haddaad saaratid tigta wuxuu kugu sheegayaa markii timekii la gaaro emailkaaga wuxuu kaloo macaa isticmaali kartaa webhoogan oo isticmaali kartaa macaa more option buu sii leeyahay tanna waa codka tan haddaad aad saaratid playsound ku qoran tahay cod ahaan buu computer kugu qaylinayaa markii la gaaro timekii aad ku xiratay meeshaan markaad furtidna waa kuwan waxaad ku xiran kartaa codkaa rabtid baad ka dooran kartaa meeshaan okay meeshaan kale oo ones ku qoran tahay halkan haddaad furtid waa inta timeka haddaad rabtid ones haddaad rabtid 5 second 10 second 30 second minute haddaad rabtidna waad ku xiran kartaa halkaana waa saacadaha mataqaana halkan marka kaga xiran kartaa meeshaan kale waxa weye sendi email to sms taleefankaaga inuu kugu soo diro sms weeye kan halkaas aad gashatid gmailkaaga aad tiraahid get code kadibna taleefanku kugu soo ogeysiinaya okay haddaan ku laabto optionkaasna waa noocaas kii taleefanku kugu soo ogeysiinayay waxaan rajeynaya inaad kuwaan fahanteen
marka haddaad rabtidna qayb ka mid a saaran kartaa tigta, haddaad rabtidna all waa waxaad saaran kartaa tig. Okay, markaad tan doorto meeshaan waa meesha fahamka u baahan. Crossing haddaan dhaho aan safe dhaho, meeshaan hadduu suuqu uu soo jaro, hadduu kor u soo jaro saas u soo jarana wuu kuu sheegayaa, hadduu hoos u soo jarana wuu kuu sheegayaa. mar walba oo leenkan uu qiimuhu soo jaraba waxaa kuu soo dhacaysa alarti kuu sheegaysa in meeshii aad u calaamasatay inuu kuu yimaaday. taasna waxaan rajeynayaa inay iyadana fahanteen qaabka loogu xirto markaa rabti inuu hal mar kuu jaro ama hoos u jaro, qaab kasta ugu xiranaysaa. waxaa kaloo samayn kartaa inaa intaad furtid karoosinka aad ka bedeshid oo aad ku xiratid crossing up iyo crossing down. saddexa marka waxay kula duwan yihiin. tan crossing haddaad dooratid wuxuu kuu sheegayaa ama suuqa hadduu hoos u jarana wuu kuu sheegaya, hadduu kor u jarana wuu kuu sheegayaa. laakiin markaa crossing dooratid up keliya wuxuu kuu sheegayaa markuu suuqu meeshaan u jaro kor keliya wuu kuu sheegayaa. markaad crossing down dooratidna wuxuu kuu sheegayaa markuu hoos u soo jaro. labadaas saddexdaas mesaasi keliya sharaxaadooda. tanna waa markay gerita tan tahay wuu kuu sheegay. haddaan ku dhufto waxaa gashanaya halkaana gashanayaan number. waxaa leeyahay numberka halkaa gashtay marka gerita dan tahay ii sheeg, markaasuu kuu sheegayaa. haddaan ka dhigto less than-na micnaheedu waxa weye markay meesha numberkan aan gashtay haddee less than tahay ii sheeg weeye. kuwanna waa kuwii aan horay usoo sharxay, waa same. Okay, midda kale waxa weeye channelkan internet channel iyo exit channel. goortu mataqaanaa uu channelku qiimuhu soo galo ii sheeg ama goortu ka baxaya ii sheeg. tana markaad ku dhufatid wuxuu ku sheegayaa laba number. waxaad kala gashanaysaa marka yani laba number baad kala gashanaysaa meesha aad rabtid markuu qiimuhu soo galo. hadda halkan aan bedelo oo kale sibraad kale aan tuso 62 baan ka dhigayaa for example. wixii oo dhan waa ii saaran yihiin tigtii safe aan leeyahay. safe markaan dhaho waxaa arkaysaa in channelkii uu meeshaana wuxuu ku sameeyey xariijin, meeshaana xariijin. marka horta channel markaa isticmaalaysa horta inaad ku xirtid macnaheedu waxa weeye inaa for example haddaan horizontal soo qaado oo halkaan aan dhigo, horizontal kala soo qaado oo halkaan dhigto, channelka waa intaan marka dhexda ku jirta. mar walba uu qiimuhu channelkan soo dhex galo waxaad dhihi kartaa ii sheeg, ama waxaad dhihi kartaa hadduu ka dhex baxana ii sheeg baad dhihi kartaa. Okay, marka hadda midaan hadda aan sameeyey waa channel. marka weli waxaad doortay marka uu channelka soo galo ii sheeg. hadduu qiimuhu halkaan kasoo galo korena ii sheeg, hadduu hoos kasoo galona ii sheeg. mar walba marka uu suuqu channelkan uu soo galoba waxaa kuu qeyrinaysaa alarmida. Okay, tan haddaad doortana hoosena waa goortu ka baxaya channelka. haddaad tan intaad doorto safe dhaho mar walba uu qiimuhu ka baxo meesha hadduu ka baxana waa chance weeye. waxaad dhahaysaa soo xasuusi kor hadduu baxana wuu kuu sheegayaa. taasna walaalo waa optionkaasna saas u shaqeeyaa. optionka kale oo ku xiga waa maxay? inside channel iyo outside channel. kuwana waxa haddaan dhaho inside haddaan dhaho aan safe dhaho yani wuxuu kuu sheegayaa hadduu suuqu channelkan ku dhex jiro wuu kuu sheegayaa. mar walba qiimuhu channelkan kugu dhex jiro alarmiga waa kusoo dhacaysa. wuxuu ku leeyahay channelku kugu dhex jira ka faa'iideyso. Okay, tan kalena waxa weeye option ku xigana waa outside channel. markuu suuqu channelka intuu kasoo dhabaxo uu joogo outside uu joogana waxaa kusoo dhacaysa alarm. optionka kale oo meesha kusii jirana waxa weeye kuwan way moving down iyo moving up. marna waa moving up, moving down, marna moving up oo waxaa la socota percentage, moving down kana waxaa la socota percentage. marka moving up ka horta waxaa loo isticmaala haddaan check siiyo waa momentumka. marka suuqu dhaqaaqo waxaa oranaysaa 2 kandal ama 3 kandal hadduu dhaqaaqo oo momentum sameeyo suuqu ii sheeg. halkan meesha bariskan waxaa gashanaysaa haddaa 2 kandal rabtid ama haddaa 3 kandal rabtid. meeshan waxaa la geliyaa lacag dheerta. for example waxaa gelinaynaa $50 oo kale. waxaa leenahay hadduu 2 dhaqaaqo baris ama 3 dhaqaaqo ii sheeg baa la weli qaab markuu u dhaqaaqayo momentum ah. halkan maxaa doortay moving up weeye. hadduu suuqu up u dhaqaaqo 3 kandal ama 2 kandal waxaa oranaysaa ii sheeg. tanna qaabkaas ugu xiranaysaa. hadduu suuqu dhaqaaqo 2 kandal oo kor u dhaqaaqo wuu kuu sheegayaa. Okay, haddaan furo okay haddaan ku laabto alarmideedii
waxaa kaloo oo jirta okay aan ku xiraa aad baa leeyahay never misread the server said alert waxaan ku xiran filayaa marka hore ku xiro okay marka meesha markaad timaadid waxaan joognay optionka moving downka iyo waxa sharaxay iyo abka sharaxay walaa kuwana waxa ka hadlayaan waa momentumka marka suuqu dhaqaaqayo baa oranaysaa ii sheeg tan haddaan naga tuso kan moving up ku qoran tahay oo percentage ka raacsan tahay kliga haddaa ku siisid meeshaan waxaa gelinaysaa for example 2% hadduu kaco laba kan dhal baa oranaysaa oo kale hadduu laba kan dhal oo kaco dhag saasa ugu xiranaysaa kuwana waxaa saaranaysaa tigta haddaa rabtid abka haddaa rabtid inuu soo pop upka ama emailka midka aa rabtid ba adiga marka optionadan waa fara badan yihiin waa intaas aduu marka kaa rabtid baad ka isticmaalaysaa marka haddaad kan adu dadkooda inta badan waxay isticmaalaan crossinga yani hadduu halkaas qiimuhu soo jaro waxaa oranaysaa ii sheeg marka adigu walaalayaa midkaa rabtid ka isticmaal muhiimaddu waxa weeye inaad fahantid sida uu u shaqeynayo systemku haddaad fahantid sida ugu xiranaysid alartiga waa easy walaalayaa waana qaabkaas aan ii sharaxay intaasaan kusoo gabagabeynaya videoga aad baa umahadsantihiin ardada teamka sal software iyo easy welena waxaan naga tegayaa insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu